iyada bis farxadeeda ku tusayso kuna barayso sida aan qof kale loogu caroonin sida qof kale inta loogu xanaaqin sida qof kale inta loogu murugoonin looguna ooynin oo de nolosha dhabta ah bis ay tahay adiga iyo qofka aad la nooshahay noloshaada de qofka muhiimka ku ah bis inta kale ummadna ay haday qayliyaan iyo hadii ay xumaadaan iyo hadii wanaagsanaadaan bo aysan waxba ka bedeli karin mafahant marka abaalo waxa jira mataqaana waxyaabo dhaxal gal mataqaana qofka sidaas ku soo gal maanta adoo nafsiyan adoo is aaminsan noloshaada inaad lose garowday qofkii gacanta ku qabtay ee kor ku qaaday maskaxdaada ilaa mugtahay qofkii ibn aadamka maskaxda ku socda fiir maskaxdaada dhistay noloshaada xafiday hantidaada ilaalisay wax walba ku sameysay yani reerkaaga kula weynaysay maanta nin ragoo de sharaf leh ka dhigto oo gurigeeda ka soo jisay aqligeeda maskaxdeeda aqoonteeda kugu bixisay berito marka aad ladnaato ama noloshan laga baxo rafaadka marka laga baxo raaxadii marka la soo gaaro faktaab ma dhihi kartaa waa may Soomaa waxa dhan oo meesha yaalo waa intaas ma fahantay because aniga abaal weyn ay gashay waana jecla dawaab xaaskeyga ma fahantay oo iyadoo maxaa la eeba waajib tahay haddana taqaana waxyaabo ma taqaana oo waxay ii raacisay oo labada qof inay waxa qof kale haduu ku sameeyo lugaha ka dhunka lahayd ma fahantay oo ibn aadan abaal ku galo ma fahantay